waxaan u mahad celinaynaa dhammaan maxaa raadayay dhalinyaradan halkan taagan iyo shirkadda Samtel iyadoo na siisay shalay iyo maanta iyo daraad buu roobku nahayay imakana ay na siisay taladaha alxamdulillah aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa oo anigu waxaan ay dumarka waaheen fadhiya ee roobku ku daayo ee cadeedu ku dhacayso ilaahay mahad ka gaadho ilaahay horta marka hore mahad ka gaadho dadkaana siiyeen ilaahay mahad iyo khayr baan u naqaynaa waayo dhibic baan nahay cadeed baan nahaysa iyo inaan taageeray hibo ee noo soo qaaday ee ardayda macallimada waxna bartay ee sharaftii maamuus talay iyo intii noogu soo biirisayba ilaahay waxaan waxsan ilaahay akhriya adduunyada baad Samtel Allah sharfo oo akhriya adduunyada baa wuxuu Allah wax wanaagsan ugu taro aniguna waxaan u mahad celinayaa shirkadaha Dahabshiil Group oo ka mid tahay shirkadda Samtel maanta deeq dhalaayada ay gaarsiisay hooyooyinka bacad joogta ee suuqa waaheen ku sugan hooyooyinkaasi bacad bay fadhiisan jireen roobku ku heli jiray qorraxdu ku heli jirtay ku qaban jirtay bacad bay fadhii jireen halka hooyada dalada kaliya haysataana ahayd hooyo lacag bixisa oo maalin walba lacag dheeli bixisa ay si ay u hesho dalada qorraxda ka harsato marka waxaan u mahad celinaynaa aniga iyo hooyooyinkaasiba shirkadda Samtel oo maanta na soo gaarsiiyay daladahaasina waan ka gudoonay inta ay in ka badanna waan u mahad celinaynaa Samtel waa shirkadda dadweynaha waligeed waxa lagu yaqaan inay dadka caawiso oo u shaqeyso dadkeedana wax ku soo celiso aad baad u mahadsantahay anagoo ah shirkadda Dahabshiil Group ahaan iyo Samtelba oo Dahabshiil Group ka tirsan waxaan maanta halka ku qaybinaynaa iyada xilli roobaad ah oo roob da'ayo in dalaayada aan ugu talagalay hooyooyinka ku ganacsanaya suuqa waaheen ee u baahan inay helaan meel ay ka galaan roobka iyo waliba cadceeda inaan u qaybinay dalaayado boqolka hooyo ma aha inaan boqolka hooyo ku joojinayno insha Allah waxaan isku dayaynaa in inta roobaadka iyo xilliyada adag ay jiraan isbedelada cimiladu ay jirto inaan hooyooyin fara badan oo goobaha ganacsigooda ku ganacsanaya oo aan haysanin meel ay istaagaan inaan gaarsiino annagoo arkayna oo og in suuqii weynaa waaheen lagu ganacsan jiray oo gubtay isla markaana laga dhaxlay in farada zero laga soo bilaabo marka waxaan leenahay ka shirkad ahaan waan sii wadaynaa waan uga mahad celinaa hooyooyinka sharafta leh karaamada leh ee ubadkoodii u taagan bacadka iyo roobka xilli kasta iyo cimilo kasta isbedelaysa waxaan shirkad ahaan iyo Samtel ahaan iyo Dahabshiil Group ahaan baan leenahay maaha markii ugu horeysay waan wadi doonaa insha Allah